kulan wanaagsan qiyaarta hawada naga dhageysanaysa saacada Afrikada bari haatan waa 7 subaxnimo qodobadan idaacadeena idinkugu haynana waxa kamid ah Ukraine oo sheegtay in Ruushku weeraro dheeraad ah uu ka geystay agagaarka caasimadda Kyiv, Puntland oo sheegtay inay dardar gelinayso doorashooyinka golayaasha deegaanka, tartan Quraanka Kariimka oo caalami ah oo ka dhacay magaalada Dubai, gabar Soomaaliyeed ayaa kaalimaha hore ka gashay. kicin jiray cashirkeeda ay akhrisan jirtay diyaarsan jirtay bacdina dugsigeeda ayaan geey jiray saas cashiradeedu ay ku wadatay oo quraanka ilaa heer ay ku dhameysay xifdisana 30 juz. Culimada diinka gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka hadlay dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda qaybo kamid ah Soomaaliya waxa kale oo aad maqli doontaan fanaaniinta aniga waxay dhahaan xaawo xirxirnaanta iska dhaaf dadka soo dhaxgal fanaaniinta soo dhaxgal waa mar walba qof haduu abwaan yahay haduu fanaan yahay waxay ka sameeyeen oo aaminsan yihiin in aanay xirxiranahay oo ba dhaxgalinba waa waraysi aan la yeelanay fanaanada Xawa Degan wararkii ciyaaraha iyo sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Ciise Xaaji Cabdulle anigoo Faadmo Macalin Abuukara ayaana idin la socodsiinaya subax wanaagsan dhageystayaal. aan ku horeyno marka hore wararka caalamka ee BBC-da Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayaa diyaar u ah. mahadsanid Faadmo. Alex Jones oo ah wariye ka howlgalayay idaacad Mareykanka ku taala oo ay leeyihiin kooxda garabka midig ayaa lagu xukumay inuu bixiyo ku dhowaad $1 bilyan oo magdhow ah kadib markii uu baahiyey in xasuuqii iskuulka Sandy Hook ee sanadkii 2012 uu ahaa mid been abuur ah. qoyska 8 ka mid ah dhibanayaasha ayaa u sheegay maxkamadda in warka laga baahiyey raadiyaha uu yahay mid sumcad dil ah oo ka dhacay gobolka Connecticut. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in hogaamiyahooda Kim Jong-un uu kormeeray tijaabada gantaalada ridada dheer kuwaasi oo qaadi kara hubka nuclearka. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in howlgalkaasi uu ahaa mid lagu guulaystay waxaana gantaalada istaraatiijiga ah ee loo yaqaano cruise-ka ee ilaa 2,000 oo kilomitir oo dhanka badda ah lagu tijaabiyey. maamulka Ukraine ayaa sheegay inay jiraan duqeymo kale oo Ruushka ka geystay agagaarka caasimadda Kyiv. gudoomiyaha gobolka Kyiv Oleksiy Kuleba ayaa sheegay in hal deegaan ay ku dhaceen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay inuu cambaareeyo isku dayga Ruushka uu ku doonayo inuu ku qabsado 4 gobol oo ka tirsan Ukraine. madaxweyne Biden ayaa sheegay in codeynta ay fariin cad u dirtay Moscow in aysan dal madax bannaan ka masixi karin khariiradda. ugu dambeyntiina hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa ku eedeysay maamulka Latvia inay si xoog ah dib ugu riixayaan muhaajiriinta ka gudbaya xadka Belarus iyo xitaa in qaarkood ay la kulmaan jirdil. dowladda Latvia ayaa sheegtay in ay sax tahay in laga hortago socdaalka sharci darrada ah. warbixinta Amnesty ayaa daba socota warbixino taasi la mid ah oo ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah muhaajiriinta ee Belarus, Poland iyo Lithuania. warkiis waxnimana waa naga intaa Faadmo. aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali wararkii caalamkeena la socodsiinaya haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadeena. aan ku horeynay sidii aad warkeenaba ku maqlayseen dowladda Ukraine ayaa sheegtay in weeraro dheeraad ah oo dhanka Ruushka ka yimid lagu qaaday agagaarka caasimadda Kyiv. barasaabka gobolka Kyiv Oleksiy Kuleba ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee Ruushku ay haleeleen goob la degan yahay. dhanka kalena golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh waxa ay ugu codeeyeen in la cambaareeyo isku dayada Ruushka uu dalkiisa ugu soo dirayo 4 gobol oo Ukraine ka tirsan. 143 xubnood ayaa taageeray cahdigan halka kaliya 4 dal ay ka codeeyeen lana safteen Ruushka. faafaynta warkan waxa inoo hayo haatan stuudiyaha igula sugan ee Ciise Xaaji Cabdulle Ciise.
faaduma golaha loo dhaniyay qaramada midoobay sida sheegtaba si aqlabiyad leh ayay ugu codeeyeen inay cambaarayaan iskudayga ruushka uu ku doonaya inuu ku qabsado 4 gobol oo ka tirsan Ukraine. qaraarka waxaa taageeray 143 dal halka 35 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha iyo Hindiyana ay ka aamuseen. si la mid ah ruushka 4 wadan ayaa diiday codbixinta kuwaas oo kale ah Belarus, North Korea, Syria iyo Nicaragua. faaduma waa tahay ciise dhan kale waxaa jirtay in dalalka NATO ay sheegeen in hub casri ah ay geynayaan Ukraine arinta ka waran faaduma xulafada NATO ee Ukraine waxay ku dhawaaqeen inay hub casri oo difaac cirka ah geyn doonaan Kyiv kadib markii ay bateen duqeymaha Ruushka. hubka ay ballan qaadeen dalalka Ingiriiska, Canada, Faransiiska iyo Netherlands ayaa isugu jiro gantaalo iyo raadaarka hawada. Mareykanka waxa uu hore u sameeyay ballanqaadkaas la mid ah mid ka mid ah nidaamka teknolojiyadda sare ee Jarmalka ayaa la geeyay Ukraine oo isticmaalayaan ciidanka Ukraine. ballanqaadyadan ayaa imaanaya iyadoo xulafada Ukraine oo ka kala socdo 50 wadan ay ku kulmayaan xarunta NATO ee Brussels ee dalkaasi Belgium. maamulka Kyivna ayaa isla markiiba bogaadiyay shirka NATO isagoo ku tilmaamay mid taariikhi ah. Ukraine waxay sheegtay in Ruushka uu riday in ka badan 100 gantaal isla markaana uu adeegsaday weeraradaasi diyaaradaha aan duuliyaha wadin Isniintii iyo Talaadadii iyagoo garaacay kaabayaasha tamarta iyo bartilmaameedyo kale oo aan military ahayn. dalka UK ayaa ku deeqi doono gantaalada difaaca hawada iyo sidoo kale 100 diyaaradood oo aan duuliyaal wadin si ay u taageeraan xog ururinta Ukraine iyo awoodaha saadka. waxaa kaloo ay bixin doonaan 18 hubka madaaficda Hoysa loo yaqaano. isagoo la hadlayay kadib kulankii Brussels Arbacadii, xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa uu yiri waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan u hubinno Ukraine inay haysato waxa loo baahan yahay si ay u noqdaan kuwo waxtar leh. madaxweynaha Faransiiska oo shirkaas isna ka hadlay Emmanuel Macron waxa uu sheegay in Paris ay siin doonto Ukraine nidaamka difaaca hawada. Netherlands waxay sheegtay inay keeni doonto 13 milyan oo pound oo qiimihiisu yahay gantaalada difaaca hawada. Canada ayaa ballan qaaday inay bixinayso iyadana in ka badan 34 milyan oo qiimahaasi lagu eegay ama lagu markii la qiimeeyay uu yahay gargaar military oo ay ku jiraan isgaasirta dayax gacmeedka iyo kaamaradaha diyaaradaha aan duuliyaha wadin. faadmo ciise ayaad u mahadsan tahay. haatana madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa xalay kulan waxa uu la qaatay ururada siyaasadda Puntland iyo guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka. kulanka ayaa ahaa isxog wareysi iyo dardargelinta doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland. madaxweyne Deni ayaa ku dhawaaqay in dowladdu ay qarash dhan 10,000 oo doolarka Mareykanka howlgelinta koowaad siinayso urur kasta iyadoo inta hawsha doorashada iyo ololaha socdana urur kasta bishiiba la siinayo 3,000 oo doolar oo joogto ah. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo magacaabayo maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ee Puntland si loo dhammaystiro ayaa la yiri waxyaabaha dhinaca garsoorka ka quseeya doorashada hal qof iyo hal cod ee golayaasha deegaanka Puntland. waa hagaaga haatana culimada diinka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa shalay waxa ay shir saxaafadeed ay ku qabteen waxa ay ku sheegeen inay si wadajir ah uga soo horjeedaan falalka ay al-shabaab ka wadaan qaybo ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya iyagoo sidoo kale taageeray macawisleyda shirka jaraa'id. kadib waxa uu wariyay Siyaad Siciid Saalax la hadlay madaxa ururka Istaga Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika Sheekh Yuusuf Cabdi Cabdulle. bayaankan maanta wuxuu ku saabsanaa 3 qodob. midka koobaad ah la dhaleecaynayo falalka al-shabaab ay ka geysanayaan wadanka guud ahaan iyo falalkii ugu dambeeyay dadka masaakiinta ah ama shacabka ay ku halbeegsanayeen. qodobka labaadna wuxuu ahaa in ummadda Soomaaliyeed ay u midoodo cadowgaas oo iska wada qabtaan. qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in la taageero oo wax la taro oo dhaqaale loo fidiyo dadka ku waxyeelooba dagaaladaas gaar ahaan qaraxyadii isdaba joog ah ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee hanti iyo dadba ay ku burbureen. waa gartay xilli badan ayuu soo socday falalka al-shabaab ay kula kacdo ummadda Soomaaliyeed oo dhimasho iyo qarax ah. maxaa ku soo beegay xilligan marka? hortay weligood culimadu maalintii ay bilowdeen ay shabaab bilaabeen dadka inay dilaan ama ay dhibaateeyaan way ka hadli jireen wayna ka hadleen. walidaalika dad culimo oo waaweyn ayaa gacanta al-shabaab ku maqan oo ay dileen. laakiin hadda waxay noqotay
dembigoodii iyo falalkoodii argagixinta iyo laynta ummadda ahaa baa aad u sii kordhay ummaddii oo dhanna way ku wada baraarugtay annaguna baraarugaas ayaan hoggaan iyo qayb ka nahay in mataqaanaa arrinta ummadda oo dhan ay u midoodo. waa gartay badi magacyada aad caawa bayaanka loogu yeerayo sida khawaarij oo kale looma isticmaali jirin al-shabaab marka dibadaha la joogo marka xilligan ma waxaa caawiyey dagaalada ka socda Soomaaliya oo ay shacabka u kaceen mise wax kala jira? culimada hore u sheegeen nimankan sifaadkii khawaarijta in badan oo kamid inay leeyihiin haddana si weyn ay u sii muuqatay oo markii cadaadis iyo culays uu soo fuulay ayay si ziyaada ah oo xadka baxa ula soo baxeen acmaashii lagu yaqaanay khawaarijta oo ah waxba inaysan reebin waxbana aysan xeerinin. waa gartay dad badan ayaa waxay qabaan fakar ah in shabaab naftigoodu ay ka imaadeen culimmadii Soomaaliyeed ama magacyaha ugu yeeraan ama si kale ha u qiyaasaan marka taa maxaa ka leedahay idinka? midda koowaad horta su'aal muhiim ah su'aashaas uma maleynaya dad badan inay qabaan laakiin ashkhas iyo afraad qabta waa jiraan arrintaas saxna ma ahan sababtoo tahay al-shabaab fikirkooda waa fikir khaldamay oo fikir khawaarij weeye oo khaldamay culimmadiina ma aha fikir ay ka keeneen walidaalika markaa dib ugu noqotay taariikhda khawaarijta xilliga saxaabada ayay bilowdeen ciidanka cali bin abi taalib ayay ka tirsanaayeen radiyallahu canhu inta aysan ku bixin oo khawaarij aysan noqonin oo aysan dagaalka la gelin saxaabada rasuulka oo dadka aysan laynin walidaalika lama dhihi kara cali bin abi taalib ayaa dhalay iyo saxaabadii kale ayaa mataqaanay ka yimaadeen ama fikirkooda ay ahaayeen lama dhihi karo saasoo kale baan maanta culimmada Soomaaliyeed loogu tiirin karin waayo qofkii xumaada asaga ayaa xumaaday walaa taziru waasiratun wisra ukhraa dadka noocaas oo sidaa dhahaya oo raba dacwada islaamka iyo manhajka salafka iyo inay isku xiraan nimankaas shabaabka khawaarijta ah waa dad ujeedooyin kale iyo dana kale leh aan dhihi karnana yastaaduuna fil maa'i al-akir biyo aan fiicnayn bay ka kalluumaysanayaan ujeedooyin kalena ay kala yihiin. waa gartay dhibaatooyinka marka ay ka dhacaan dalka Soomaaliya hadday noqoto abaaro hadday noqoto colaado aan oraahday nabad loogu raadinayo dadka Soomaaliyeed culimada Mareykanka jooga waxay ahaayeen kuwo ku taageera dhaqaale marka dadka hadda dagaalka kula jira shabaab maxaad ku taageeraysaan culimadiina? annagu si kasta oo mataqaanay taageero ah waan u fidinaynaa dadkeena Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira nimankaas shabaabka ah iyo Daacish iyo wixii la mid ah sidii awal baan u taageeri jirnay dadka dhibaataysan abaaro ku dhaceen maxaan ku iraahdaa qaraxyadooda ay saameeyeen walidaalika hadda waxaan si gooni ah u taageeraynaa dadkii ay qarxiyeen oo mataqaanay ama ay laayeen ama ay guriyihii ka dumiyeen ama biisnisyadii iyo acmaashii ay haysteen ay ka dumiyeen marka si walba ayaan shacabka Soomaaliyeed u taageeri jirnay baan haddana u taageerinaa insha Allah. ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Shalay wuxuu ka soo jeediyay baaq in lagu wada jeesto marka dhiirigelin ma idii tahay shirkiina jaraa'id arrintaas ma daba taagneedeen mise waa mid idinku isku abaabusheen? muddaan soo abaabulaynay shirkaas in aan mataqaanay shirkan hadda maanta aan qabanay muddaan soo abaabulaynay way ka horeysay fadhiga madaxweynuhu uu la yeeshay culimada uu la yeeshay way ka horeysay laakiin isku meel bay ku biyo shubanayaan waana bogaadinaynaa waana soo dhaweynaynaa aad baan u taageeraynaa baaqa iyo madaxweynaha wadanka iyo dhammaan madax goboleedyada iyo meel walba ay joogaan iyo culimadii arrinta ka qayb gashay waxaana ka nahay hal gacan baan wadanahay annaga dhan oo ka simanaa aad baan u bogaadinaynaa ummadda Soomaaliyeed inay arrintaas ayada ay u istaagaan. kaasina waxa uu ahaa madaxa ururka istaga jamciyadda islaamiga ee waqooyiga Ameerika Sheekh Yuusuf Cabdi Cabdulle wuxuuna u waramayay wariyay Siyaad Saciid Saalax wali halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. imikana tartanka quraanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta kaasoo ay ka qayb galeen arday badan oo ka kala socotay caalamka ayna ku jiraan Soomaali. Muniira Cabdulfataax Cabdi ayaa ka mid noqotay ardayda Soomaalida ah ee kaalimaha hore ka galay tartankan. haddaba hooyo Deeqo Mukhtaar oo ah hooyada dhashay Muniira ayaa ka hadashay guusha gabadheeda iyo waqtigii ay markaasi ku soo bixisay waxaana u warantay Caasha Saciid. dareenkayga wallahi aad ayaan u faraxsanahay farxadeyda lama soo koobi karo alxamdulilaahi rabbil caalamiin gabadhayda Muniira oo ka qayb gashay tartamkii caalamiga ahaa oo Dubai lagu tartamayo adduunka dhan ay isugu imaanayeen alxamdulillaah kaalin fiican ay ka soo gashay
toobteen ay soo gashay kaalinta 8aad ay soo gashay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulillaah. maxaad si gaara uga caawin jirtay gabadhaada? si gaara waxaan uga caawin jiray hoomaageedeeda loo soo diray habeenkii cashiradeeda loo soo diray ayaan la diyaari jiray subaxdii aroortii aan kicin jiray cashirkeeda ayay akhrisan jirtay diyaarsan jirtay kabacdina dugsigeeda ayaan geey jiray saas cashiradeeda ay ku wadatay oo quraanka ilaa heer ay ku dhameysay xifdisana 30 juz. marka maxaa lagu abaalmariyay? waxaa lagu abaalmariyay lacag 2 milyan ayaa lagu abaalmariyay laakiin ani hadda farxad weyn lacag ima sii ahan alxamdulillah ani farxadeeda waxaa waaye diinta ilaahay ay baratay kitaabka ilaahay baratay tafsiirka hadda weli ma bilaabin laakiin insha Allah inay bilowdo ayaan rajaynayaa barato laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan rajaynayaa inay ilaahay midi oo taashka jannada ii saarto inay noqoto oo kitaabkeeda midigta laga siiyo mid ku dhaqanta inuu ka dhigo kitaabkeeda dadkana barto dadka waxay baratay barto oo aakhiri adduunba lagu anfaco. gabagabadii maxaad kula talin lahayd waalidiinta ku dhageysanaysa? waalidiinta dhageysanaya waxaan kula talin lahaa ilmahooda inay dadaal iyo juhdi badan ku bixiyaan xagga diinta meesha ay iskuulka dadaal badan uga bixinayaan waxaa fiican inay kitaabka ilaahay baraan oo quraanka baraan oo kula dadaalaan iskuul maadi hadda wax macnaa weyn laga keenayo malahan muhiimadda quraanka in la baro waa ilmaha lagula dadaalo. taasina waxay ahayd deeqa mukhtaar oo ah hooyada dhashay Muniira Cabdifataax Cabdi oo iyadu ka mid noqotay arday Soomaali ah oo kaalimaha hore ka galay tartanka Quraanka Kariimka ah oo lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxaana u waramaysay Caasho Saciid dhanka kale macallinkii dugsiga Quraanka ee Muniira iyo isaguna waxa uu ka warbixiyay waxa ay uga dhigan tahay guusha ay gaartay Muniira oo ardaydiisii markaas ka mid ahayd isla Caasho Saciid ayuuna u waramay. ما شاء الله aad baan u dareemayaa farxad aad u badan baan dareemayaa runtii ardaydeed soo guuleysatay aad baan ugu faraxsanahay gabadha anaga Muniira Cabdifataax oo ka qayb gashay musaabaqadii Dubai العالمية qaybteeda dumarka musaabaqada Sheikh Fatima وشي soo hoysay aad baan ugu faraxsanahay aad baan u faraxsanahay lama soo koobi karo dareenkayga. waa tahay macallin qaab noocee ah ayaad ardayda wax u bartaa? ardayda sidii caadiga ahayd ee dugsiyalka wax loo bara baan wax u barnaa ardayda runtii waxaan ku bilownaa quraanka aroortii markay soo galaan quraanka ayaan ku bilownaa kabacdi muraajacaad iyo dhageysi fara badan u sameeynaa alxamdulillah inta aan ilaahay noo barakay dadaalka dugsiyalka ka socda mid lamid baan wadnaa ilaahayna intaas uu noo barakay. markii ugu horeysay miya uu ardaygaaga kaalin noocan galo? maya markii ugu horeysay ma aha mar badan ayay ardayda anaga guuleysteen madrasada anaga Muscab ibn Umayr ayaa la yiraahdaa in badan ayay guuleysteen bulshada Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta Kenya ku nool waa yaqaaniin midalan hadda sanadkii aan soo dhaafnay waxa kaalinta 3aad ka soo gashay musaabaqada Dubai musaabaqada Sheikh Fatima gabar la yiraahdo Muna Cabdifataax ayaa iyadana waxay ka soo gashay kaalinta 3aad oo gabadhan kaalinta ay soo hoysay ka sii horeysay oo runtii aad u soo guuleysatay mar kale ardayda anaga waxay ka qayb galeen Rwanda lambar 1 ayay ka soo galeen qaybta wiilasha Kenya gudaheedana in badan ayay kaalimaha koobaad ardayda anaga soo galeen alxamdulillah. macallin muxuu dugsigaaga ugu duwan yahay dugsiyada kale? ما شاء الله عاش سؤال مهم الله كبركايا وح وين أو هذا أن شيء كرا أو كجبدلين هي مجرته لكن دلال بان سمينا حن رجينا مركز دلال كأن سميني جهد قام بحني ون إلهي نبركي. kaasina waxa uu ahaa macallin jaamac wardheere nuur oo isagu markaas ahaa macallinkii dugsiga quraanka ee Muniira Cabdifataax oo iyadu ka mid ahayd ardayda Soomaalida kaalimaha markaasi hore ka galay tartan quraan kariimka oo Dubai Imaaraadka Carabta lagu qabtay. Caasho Saciid ayuuna u waramayay haddii aan eegna qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo qodobkaasi boggeena Facebook raayigooda uga soo dhiibtay. Ibraahim Aadan Maxamed oo jooga Garbahaare gobolka Gedo waxa uu leeyahay waan bogaadinayaa tartanka quraanka ee kaalinta koowaad ay gashay gabadha Soomaaliyeed waxay horseed u tahay sida ay gabdhaheena Soomaaliyeed waxbarashada ugu soo jeesteen waxaana leeyahay Allah ku xafido ayuu yiri. Xamse Maxamed oo jooga Kismaayana waxa uu leeyahay runtii aad baan u bogaadinayaa guulaha waaweyn ay Soomaalidu ka gaarto dunida kaasoo ay ka mid yihiin tartanka quraanka kariimka oo waxa ugu muhiimsan ee anfacaya bulshada si jahliga looga baxo waa aqoonta waana ku faraxsanahay tartankii ugu dambeeyay Dubai inay ku guuleysato gabar Soomaaliyeed sharaf ayayna u tahay yiri guud ahaanba dadka Soomaaliyeed aad ayay u mahadsan yihiin dhageystayaashaas iyo waliba kuwa kale iyaguna ra'yigooda hayna la soo wadaagay wali halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC.
haatana wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa soo gabagabeeyay socdaal 10 maalmood ah oo uu ku joogay Afrika. Waxa uu ballan qaaday in wadankiisu uu sameyn doono wax kasta oo uu awoodo si uu qaaradda ugu soo diro qamadi badan. Wadamo badan oo Afrikaan ah ayaa si weyn waxay ugu tiirsanayeen qamadiga Ruushka iyo Ukraine laga keeno si ay rooti uga samaystaan, laakiin saadka ayaa istaagay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine bishii Febraayo ee sanadkan. Taasi waxa ay ka dhigtay wadamada qaarkood in ay dib uga fakaraan waxa ay ku bedelan karaan xitaa haddii soo dejinta badarka ay dib u bilaabato. Isku dayga isku filnaanta ayaa haatan sii kordhaya. Team Well ayaa ka warbixinaya dalka laga jecel yahay rootiga qamadiga laga sameeyo waa dalkaasi Senegal ah. Xintiisa soo jeedinaysa. Qu'est-ce que vous achetez? Baguette normale. Baguette. French baguette. I have a meeting, sorry. Malaayiin reer Senegal ah waxaa jirta hal wado oo ay ku bilaabaan maalintooda oo ah ul Faransiis ah oo dheer. haddii laga soo gatay rooti bulangeeri casri ah caasimadda Dakar ama adeega gaarsiinta fardaha iyo gaariga ilaa tuulo dhoobo ah, rootigan waa ay jecel yihiin. waxa ay cunaan subaxdii, habeenkiina waa ay cunaan iyo maalin kastaba. dhib ma laha heerka uu doono ha lahaado dhaqaalaha. maalin kasta waa qaxwo, sonkor, caano, kadibna waa rootiga boquetka ee Faransiiska. waxaa qasaba inay haystaan rootiga, balse rootiga boquetiska oo ay soo bandhigeen gumaystayaashii Faransiiska ayaa laga sameeyay sarreen ama qamadi. taasina kuma kori doonto cimilada Senegal. markii alaabtii ay keeni jirtay Ruushka ay joogsatay sanadkan, Senegal waxa ay ku qasbanaatay inay hesho alaab kale sida qiimaha raashinka dunida uu sare ugu kacay. dowladda Senegal ayaa ballan qaaday malaayiin dollar si ay u soo celiso soo dejinta, si loo hubiyo in qiimihii isticmaalayaashu ku bixiyeen rootiga uusan isbedelin. balse Claude Dembe oo ah madaxa ururka soo dejinta ayaa sheegay in mustaqbalka fog uusan gobolku awoodi karin inuu bixiyo lacagtaas. waxaa jira laba wado, ama waxaan isku dayaynaa inaan ku beerno sarreenka dalka Senegal oo waxay qaadan doontaa 5, 6 ama malaha 10 sano oo tijaabo ah si loo abuuro noocyo kala duwan oo ku habboon cimilada iyo carrada. waxaan bedelaynaa habdhaqankeena cunto ee isku dhafka xeebta koonfureed ee magaalada Dakar. Ngaburu Isse Diop Sako waa khabiir ku takhasustay dhaqaalaha oo aad u jecel rootiga. waxa ay bilowday rooti iyada u gaar ah. waxay isku dayaysaa inay beddesho caadooyinka cuntada iyada oo samaynaysa nooc cusub oo cajiinka boquetka ah oo cunto karinta ay iyadu samaysay ah. kani waa daqiiqadii masagada. waxa uu u egyahay qamadi cad Soomaha, dhadhankuna waa uu ka duwan yahay kan kale. Sorghum is like a type of like a millet here. hagaag waxa ay ku siinaysaa qolof. dhadhanku waa ka adag yahay, ka qiiq badan yahay rootiga cad. aad ayay muhiim inoogu tahay sumad ahaan in aan si dhab ah u soo bandhigno badarka Senegal si aan uga dhigno wax aan leenahay. Isu weli waxay ku isticmaashaa boquetskeeda xoogaa bur ah, laakiin iyada iyo kibistayaal kale oo Senegalees ah ayaa hadda sidoo kale ka samaynaya noocyo kala duwan oo rooti ah oo gabi ahaantood ay ka samaysan yihiin kuwa asaliga ah. halka haruur ee maxalliga ah oo hadda dib loo helay waa fonio. waxay u eg tahay sidan. waxay u eg tahay in gabi ahaanba ay tahay caws caadi ah. aad ay u mahadsan tahay Foos Ciid warbixintaasi nala socodsiinaysay. haatan waxaad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelanay fanaanada Xaawo Degan oo ka tirsan gobolada Waabare magaalada Muqdisho. wariye Foos Ciid ay nooga warbixisay waayaheeda fanka. waxaan horta ka mid ahaa tiim dhalinyaro oo hay'adda CRD u qabatay barnaamij hirgeli hamigaaga faneed ah. marka inkastoo yaraanteedina aan jeclaay kuna soo barbaaray xaafadii fanka lagu yaqaanay ee Exfiore horena aan u jeclaa, fursadaas ii banaanaan ka faa'iideystay. marka meeshaasaan ka soo galay fankeyga waxa 2014kii. heesahaaga Xaawo inta aan ka aragnay jiraan heeso adiga ku quseeya ama abwaanka aad ka dalbatay inuu kuu sameeyo ama wax uu noloshaada ku saabsan oo fankaaga la xiriira ma jiraan? walahi heesaha wadaniga inaan
aniga ii samee oo abwaan aan ka codsado ma ogiye heesaha kaloo iska caadiga ah abwaanka inuu kula soo jeclaado laakiin heesaha wadaniga ah aan jeclaha aniga u badanahay oon ka dalbada abwaanada fanka ayaad ku jirtaa dabcan fanaaniinta noloshooda hoose ama waxyaabo iyaga ku saabsan oo la garanayo aad bay u yaryihiin iyagoo heesaya bulshada madadaalinaya kaliya unbaa la arkaa marka aan dabeecadaada hoose u dhaadhacno xaaway ma jiraan waxyaabo lagugu xanto ama dadka kuugu dhowba ay ku yiraahdaan xaawo dabeecadan bedel si fiican horta waxaa la dhahaa xaawo fanaanaad tahay fanaaniinta bini'aadan qofka ilaahay uu uumay qof dhammaystiran ma jiro qof walba meel uu ka qaloocan yahay ama waxaa ka qaldan aad iyo aad qof marka ku dhaha waa dhammaystiranahay ma jiro fanaaniinta aniga waxay dhahaan xaawo xirxirnaanta iska dhaaf dadka soo dhexgal fanaaniinta soo dhexgal waa mar walba qof hadduu abwaan yahay hadduu fanaan yahay waxay ka saman yihiin oo aaminsan yihiin in aniga xirxiranahay oonba dhexgelinba adiga ma aaminsan tahay dabeecadan xirxirnaanta iska daa waa aaminsanahay marka dadku isdhexgalaan moogtahay waa ay wada socdaan waa wada anigii gooniya hay keligaa socdo maxma ku darsado marka waa runtood dabeecadaas dabcan waa sababta lagugu bixiyey xaawo degan macquul xaawo hooyo ayaa tahay marwo ayaa tahay waan aragnay adiga oo lagugu hambalyeynayo ama ka qalin jabinaya heerka koowaad ee jaamacadda waxbarashadaada iyo noloshaada hooyanimo tan marwanimo iyo weliba tan fanka dabcan waa howl mid weliba culayskeeda ay leedahay sidee isugu wada maaraynaysay wallah way adag tahay waa nolol aad u adag sababtoo ah marwaa tahay waxaa lagaa rabaa inaa oo kuu qanacsanaado saygaaga hooyaa tahay waxaa lagaa rabaa ilmahaaga inay ku xanaanaysan yihiin waxaa lagaa rabaa markaa galaaska leedahay inaadan soo daahin ama maqnaa xiisad aysan ku dhaafin waa wareer marka hooyaday dhashay ilaahay ii daaya kheyr allaha siiyo iyo odagayga wax badan soo dadaalay waa walacee waa xaamilaa noqonee imtixaan inuu ku sugaayo laga yaabaa mararka qaarkood anoo xaamila waxaa arkay habeenkiis marka xoogaa seexdo intaa wax iska afifiiriya seexdo saq dhex inaa soo naxo imtixaankii kusoo naxaa xaamila ahayd laga yaabaa fasalka inaa kori waa jaranjaradiisa wallahi marxalad aad u adagay ahayd alxamdulilah final oo kusoo guulaystay ilaaha mahadaas leh odagayga aad ugu mahad celinaya wallaahi wuxuu idhahaa markaan daalamaya hadaalinka soco bax ilmaha xanuunsan cisbitaal digfer mir a ku jiray cunugtoos tacbaan iga ah uu idhihi jiray bax soo gal imtixaankaaga joogay waa tahay ugu dambeyn xaawo in saygaaga ama xaajigaaga uu si aada kuu caawiyey xagga nolosha ayaad inoo sharaxday bal ka waran dhanka kale maxay kaaga dhigan tahay in lamaanahaaga uu yahay qof kugu weheliya fanka ama mihnada ama isku mihnad aad tihiin maxayse kaga duwan tahay in qofka lamaanahaaga ah aadnaan isku xirfad ahayn horta aniga isku xirfadna waa ahayn waa isfahansaneyn wax badan laakiin way jiraan gabdho fanaaniin oo arkay oo iyaga iyo gabar fanaanada iyadii saygeeda aysan isku xirfad ahayn laakiin ay isfahansan yihiin oo markay soo aadayso shaqadan uu ilmaha xataa usii haayo waa arkay waa sida ilaahay labada qof isku fahansiiyo waa hagaag fanaanada xaawo degan oo u waramaysay foos ciid ayay taasi ahayd ciyaarihii haddii aan waxyar ka eegno kooxda kubadda cagta barcelona ayaa tababarbaro waxay la gashay inta milan oo marti u ahayd waa ciyaarihii xalay dhacay iyadoo waqtiga dheeraadka uu Robert Lewandowski ka badbaadiyay inay ka haraan tartanka Champions League kadib markii gool uu dhaliyay waqtigii dhamaadka waa hagaag dhageystayaal idaacadeeni subaxnimona waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe haddii ay baydmo nabadgelyo